Fiidiyoga waxaan ku isticmaalay background music balse qayb ka mid ah background music-ga codka waa uu hooseeyaa qayb ka midna codka waa uu sareeyaa marka qaabkee ayaad u samayn karaysaa marka si aad u samayso waa ay fududahay keliya waxaa imaanaysaa background music-aada ayaad imaanaysaa kadib waxaan rabnaa in qaybtan dhexe codka aysan ku jirin in markaasi aan music-ga aan dheereyno marka qaybtan aad keli siinaysaa oo keliya so kadib markaa qaybtan keli siiso waxaa markaasi maamuli kartaa codkaada dheeraanshiisa iyo sidoo kale jaabnaashiisa so horta marka koowaad codka meeshaan laga dheereeyaa oo sidoo kale laga jaabiyaa so hadda codka intaan ay markaasi yahay levelkiisa so waxaan rabnaa inaan u sameyno bar bilow oo ah levelka in la sareysiiyo iyo bar dhamaad in loo sameeyo marka su-aal kale waxaa leeyahay meeshaan waxay noqonaysaa meesha markaas uu ku sameyn yahay levelkii hore kadib level cusub ayaa markaasi bilaabeynaa soo dhibic kalaa sameynaysaa halkan ayaa ka sameynaysaa marka waxaa loo yaqaanaa key frames aa loo yaqaanaa sida animations oo kale so waxaa sameynaa marka levelka wuxuu ka bilaabanaya inta kale ka bilaabanaya so saan ayuu u dheeraanaya saa ujeedaa musica ilaa meesha u dambeysa waa la dheereysiinayaa balse waxaa sameynaynaa ilaa iyo waxaa imaanaynaa qaybta arabno kale imaanaynaa kadib waxaa dhehnayaa ilaa iyo meeshan ayuu ka ejahay levelkan so levelka kalena waa la soo celinaya dhibic kale ayaad sameynaysaa so dhibicdan kale markaad sameyso waa soo celinaysaa levelkaas sida kuu ahaa ayaad markaasi ka dhidanaysaa so waxaan filaya haddeerta inaad fahanteen waxayna markaas sidan ay usoo sikinaysaa si markaasi xojo yar markuu gaabnaanayo oo markaasi waqti yar uu yara qaato marka waxaa weeyaan qaybtaas fudud ayaa loo sameeya marka codka la dheereynayo kadibna la gaabinayo marka adoona u baahnayn inaad codkaad kala jarjarto ama si gaara markaasi inaad u dheereyso marka waxaan rajeynaya inaad si fiican u fahanteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu